السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو dhawaada kanaalka Yaad Fitaax. Maanta waxaa miiskan loo saaran Somaliland iyo Soomaaliya heshiiskii horumarinta ahaa ee is-afgaradka ku saabsanaa ee ka dhacay magaalada Djibouti. Sidaan wada ognahay shirkan wuxuu dhacay shalay. Waxaana laga soo saaray 8 qodob. Waa wada aragnay, waa wada dhageysanay, waa wada akhrinay qodobada. Laakiin maxaa keenay in shirkan hadda xaaladan lagu jiro la isugu yimaado wadanka Djibouti? Waxaan rabaa inaan wada falaqeyno sababta keentay. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan xaaladda Soomaaliya idinka waramo. Soomaaliya waxay ku jirtaa Soomaaliya waxaan leeyahay dhammaan Somaliland, Soomaaliya dhammaan wada Soomaaliya, laakiin hadda qaybta koonfurta Soomaaliya waxay ku jirtaa dagaal al-shabaab ah gudaha Soomaaliya looga xoreynayo. Waxay ku jirtaa ay soo martay dadaal weyn ahaa idin cafinta. Waxay ku jirtaa midowgii wadamada geeska Afrika. Waxay ku guda jirtay halgan weyn oo soo gashay Soomaaliya dawladda mudane Xasan Sheekh Maxamuud sidii cunaqabateynta hubka Soomaaliya looga qaadi lahaa. Waxaasoo dhan ayadoo magaranaysa xaalad wada ku jira ay tahay Somalilandna ama waqooyiga Soomaaliya ayaguna ay dagaal gudahooda ay ku jiraan. Wada ogtihiin dhinacan harti iyo magaranaysa huwanta iyo dhinaca kale magaranaysa Somaliland isaaqa inay dagaal isku hayaan oo magaranaysa intii sanadkii hadda tagay bilowgiisii dagaal baan lagu baaba'ay oo labada geesooda oo ka dhacay ugu dambeynna Somaliland ay ku jabtay. Marka maxaa isbedelay oo hadda keenay in Somaliland markii ugu horeysay wasiirkeeda arrimaha gudaha intuu raaco madaxweynaha Somaliland oo la soo shiro Soomaaliya kadibna heshiis la gaaro kadibna si wada jir ah laba wasiir gudo ay wada saxaan. taas ragga siyaasadda falaqeeya waxay aad leeyihiin waxaa dhacay isbedel weyn oo halkaas iyo Somaliland ka yimid oo magaranaysa markay arkeen waxay arkeen baa rabaa inaan wada aragno. Waxay leeyihiin ragga siyaasadda u dhunduleela Soomaaliya iyo Somaliland ba sababta hadda keentay in Somaliland ay soo jilicdo soo dabacdo ogolaato waxyaabo badan ee awal diidanayd ka mid tahay ereyga inay maamul goboleed ay tahay sida maamul goboleedyada kale ay la mid tahay hadda ogolaatay iyo in magaranaysa mowqifkii adkaa gooni ogoosadka ka soo dabcaan. taas aniga ahaan fikirkayga rabaa inaan idinla wadaago. ugu horeyn siyaasiyiinta Somaliland aniga fikirkayga waxay istuseen xaaladda Soomaaliya ama geeska Afrika ay hadda marayso taasoo ah in Soomaaliya sidii hore hadda ahayn isbedelo waaweyn ee geeska Afrika ka dhaceen. waxaa ugu horeeya in Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii hubka taasoo macnaheedu ay tahay in Soomaaliya ay soo gadan doonto hubab waaweyn oo culus, kaarayaal, miigag, diyaaradaha dagaalka, maraakiib, kuwa quusa iyo kuwa koraba. taas Somaliland waxay ku keentay inay dib uga fakiraan mowqifkoodii hore ee ahaa gooni ogoosadka iyo mar walba taataabanta ama jugjugeynta koonfurta Soomaaliya. qodobkaasi wuxuu keenay in Somaliland siyaasiyiintu ay istusaan in Soomaaliya sidii hore ahayn isbedel weyn halkaas uu ka yimid. qodobka labaad ugu muhiimsan magaranaysa jibiyey Somaliland qadiyadoodii iyo aaminsanaantoodii waa huwanta runtii door muhiim oo weyn bay ka ciyaareen sidii Somaliland ay Soomaaliya dib ugu soo noqon lahayd. maxaa yeelay dagaalkii la galay Somaliland iyo SSC Khartoum State iyo hartiyo iswata dhinaca taas waxay keentay in ciidankii weynaha shacabka Somaliland ay ku faani jireen oo ka mid ahayd in la dhihi jiray madaxweynaha hadda haysan Muuse Biixi wuxuu dhisay oo quwadeeyay ciidanka Somaliland.
taas waxay ka baxday meesha markii ciidanka huwanta ay boqolaal qofood oo xabsi ah maxaabiis ay qabteen dagaalkiina ay ku guuleysteen ciidanka Soomaaliland lagu guuleystay ilaa haddana la laayahay ciidankii weynaa ee quwadda lahaa ee Soomaaliland meelo jaani cilib dhigay taas aniga shakhsi ahaanteyda waxaan islahaa maadaama dagaalka marka hore food la istaro waa la kala guuleystaa waa wax caadi ah oo dhaca laakiin waxaan islahaa aniga Soomaaliland saa kuma quusan doonto Muuse Biixi waa nin hanjabaad badan dagaal ciidan ahaan jiray dagaalkii yaqaana aarsan doona aniga islahaa laakiin fikirkeygii khaldanaa wuxuu noqday hal bacaad lagu nisay wuuna socon waayay maxaa yeelay waa muddaan dhowraynay sugaynay goortay Soomaaliland soo rogaacin doonto dagaalka dib u soo qaadi doonto ciidanka huwanta ma garanaysaa foolka fool isku arki doono ilaa hadda nasiib daro ma hayno ciidankii Soomaaliland taas macnaheedu waxa waaye Soomaaliland waa jabtay ciidan ahaan waana jabtay qadiyad ahaan hadday ciidan jiro oo ma garanaysaa Soomaaliland ay leedahay waxay imaan lahaayeen furunta dagaalka ciidamada Khaatuma state Khaatuma ay ma garanaysaa food istar lahaayeen kadib wixii la kala helay leeyahay laakiin food istiritaanki ama ku dhiiranaantii ciidamadaasi Soomaaliland muddada badan ay ku fahanaysay meesha waa ka baxday taasina waxay keentay in shacabkii iyo siyaasiyiintii iyo ma garanaysaa bulshadii kaleba ay ku baraarugaan in Soomaaliland 32 sano ciidankeedu uu ahaa prank oo ma garanaysaa maadaama aanan wax lahayn wax yimidna aysan jirin marka aniga ma aqaan sababtaas keentay mana waxaas lahaa ciidanka Soomaaliland waa ciidan adag aaminsanaanteeda aniga shakhsiga ah laakiin waxay noqotay taasi mid aad aragteen qodobkaasi waa qodob kale oo keenay in Soomaaliland ama Muuse Biixi oo ka soo dago meeshii hore u taagnaa oo ogolaado in hadda Soomaali weyn ma garanaysaa ay muhiim tahay qodobka kale ee meeshii yaala wuxuu yahay Soomaaliland gudaheeda isaaqi waa haystaa hadda waxaan maqlaayay in habar jecel oo ma garanaysaa ay ku soo biiri doonto ciidamada ma garanaysaa ama maamulka Khaatuma state burbur waxaa soo socda gudaha ah Boorama waa kacsan tahay awdal state wada ogtihiin hadda dhulbaxanta waa ku daayay marka habar awal meeshan awal iska haysatay hadda ma garanaysaa isaaqi laftigiisii wuxuu taagan yahay aniga markaan waa markaygii ma garanaysaa waana lismari lahay dhibaato badan oo gudahooda ka jirta waxay keenaysaa inuu yiraahdo Muuse Biixi markaan baash waa kugu xun tahay intaysan garanaysaa aysan halistu baasha gaarin balla carar oo lacagii wax ma garanaysaa koonfurtaas uga hel qodobkaasi waa qodob asagana meesha ku jira iyo horumarka weyn qodobka kale wuxuu yahay in shacabka ama siyaasiyiintu Soomaaliya ay arkeen horumarka weyn ee ka jira koonfurta sida inay Soomaaliya ku biirtay suuqweynaha geeska Afrika taasoo fursad qaali u ah shacabka Soomaaliyeed oo ah shacab ganacsiga ku dhiiran ama ka horumarsan shacabiyada kale geeska Afrika taas waxay keentay in garanaysa dhiiranaan iyo hididiilo cusub ay ku abuurto shacabka Soomaaliyeed khaasatan reer ma garanaysa Soomaaliland taasna waxay xoojisay in qadiyada midnaanta Soomaaliya ay ma garanaysa dardar gasho waa qodobo kale saas oo kala oo badan baa ma garanaysaa raggan siyaasadda u dhuntoleela ay sheegayaan marka waxaan rabaa bal inaan qiimayno shacabku ayagu maxay aaminsan yihiin maxay kula tahay maxaad seed u aragtaa in shirkii hadda dhacay waxaad u aragtaa in Soomaaliland ay dan ugu jirtay oo ma fahmaysaa ayagu ay ma garanaysaa ay guul soo hoyatay ma waxaad u aragtaa adna in ma garanaysaa shirkii la galay shalay ee Djibouti ka dhacay labada wasiir gudo Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada saxiixdeen ma koonfurta ama Soomaaliya bay dan ugu jirtaa oo guul soo hoyday fikirkaaga waa muhiim waana la dhiiban kartaa